بسم الله الرحمن الرحيم وأنا دين سلامة يا دمان ضدك كتحن يوتيوب كا ليراه الرجيء نلال وأنا نقول لي هاي وأن دورتي رهرن أن أسوق لي وحيابا أن كجحد ليه وناجة إياه إن لقفوا قاعد حمانته نرشة أذنها وحيكو حبانت هاي إن si wanaagsan sharaf leh isana ku jirto loogu noolaado waxaan habboonayn in nolosheena ay noqoto mid astaan oo xumaan iyo ceeb iyo wax la mid ah sidaas daraaddeed galabta waxaan rabaa inaan diiradda aan saaro arrin ku saabsan fidinta xumaanta dadka waa qofka fidiya xumaanta ay leeyihiin dadka kale iyadoo xumaanta tan ugu daran ay tahay haddana qofka markuu abuurayo isaga xumaan aan jirin markaad ka abuuraysid walaalkaaga waa ay kasii daran tahay marka aad sheegaysid xumaan ka dhacday walaalkaaga inta aadan qof wax ka sheegin adig isku fiiridib bini aadam dhammaystiran ma jiro qof walba wuxuu leeyahay duldaleel xagga nolosha ah markaad aad noloshaada ka aragto inay leedahay dulduleel ha fidinin kaba sii daran ha abuurin xumaan uusan lahayn walaalkaaga kale waa ceeb waa sharaf darro cidna wax uma soo kordhinayso adig wax kuuma soo kordhinayso qofka walaalkaagana waa ay dhibaysaa taariikhda haddaad dib u eegto taariikhda waxyaabo badan oo laga hadla ayaa jiro qisooyin fara badan oo la sheega ayaa jiro mid ka mid ah qisooyinkaas ayaan rabaa galabta inaan idinla wadaago waa qiso ku saabsaneed nin oday ah oo dabeecad ay ka ahayd in uu dadka dulmiyo iyo nin wanaagsan oo dhalinyaro ah oo deris ahaa ninkani odayga ahaa waxaa dabeecad u ahayd in uu fudiyo oo uu abuuro xumaan iyo inuu dadka uu ceebeeyo ceebo aysan lahayn uu ka sheego uu abuuro sidaas daraaddeed ayaa waxaa diiradda uu saaray oo isku day inuu magac dilo oo uu sumcad dilo ninkii dhalinyarada ahaa ay deriska ahaayeen oo isna lahaa meel goob yaroo ganacsi ah mar walba wuxuu dadka u sheegayay xumaan aan jirin oo ninkaas dhalinyarada ahaa ninka odaygaa fidinaya xumaanta heer waxay gaartay xumaantii uu fidinayay uuna abuurayay in ay saamayso dabcan nolosha wiilkan dhalinyarada ah cilmi nafsi ahaan waa uu dhibsaday waayo waad ogtahay marka xumaan lagaa sheegayo dareenkaagu isbedelayaa si walba oo aada dulqaad u leedahay si walba oo aada u tahay qof samir badan qof maxaa la yidhaahdaa oo caqligiisu uu sareeyo haddana dareen ahaan waad isbedelaysaa psychologically cilmi nafsi ahaan dhaawacyo ayaa ku gaaraya marka ninkii dhalinyarada ahaa dhaawacii iyo propagandadii uu fidinaya odaygani waxay u geysatay waxyeelo xagga psychologically ah dareen ahaan wuu dhibsaday ayadoo taa ay jirta haddana waxaa ugu sii darsantay odaygana ma ahan mid waabanaya ma ahan waxaa ugu sii darsantay xaggii dhaqaalaha oo goobtii yara uu ganacsiga uu lahaa ayaa waxaa saameyn ku yeeshay hadallada xumaanta ee ninkan uu fidinayo iyadoo aakhirkii uu wixii uu dulqaadan waayay kadib wuu baxay wuxuu u tegay maxkamad ku taali meesha ay ku noolaayeen maxkamaddii ayaa waxa uu ka sheegay oo uu yidhi ninkani deris baan nahay har iyo habeen wuxuu u taagan yahay inuu dacayad iga fidiyo inuu iga abuuro marka waxaan rabaa in sharciga uuna kala saaro uu ninkana iga qabto inta badan dadka qaadiyada ee maskaxda fadhiya waa raali ahaada dadka qaadiyada inta badan maxkamadaha fadhiya waa dad aqoon leh waa dad caqliga u saaxiibka ah odaygii ayaa la weydiiyey oo qaadiga wuxuu yidhi maxaad samaysay waad wiilkan dhalinyarada ku samaysay wuxuu yidhi ninkan waxa uu sheegay waa run laakiin aniga jir ahaan uma gacan dhaafin ma garaacin
hanti uu leeyahay maanan ka burburinin oo idinkayga waxba maanan ku gaarsiinin. waxa keliya dhahay wuxuu ahaa hadallo. waan hadlayay oo waxban ka sheegayay. wuxuu yidhi qaadigii waa okay, waa kugu raacsanahay, waxaa tiri waa un hadallo, dhaawac kaloo gacan hamaadan u geysanin, marka dacwadanna mar kalan gelaynaa, balse intaan hadda maxkamadda aan xidhin ayaa waxaan ku dhiibayaa waraaqado oo ninkii odayga ahaa ee dadka dulminaya ee wiilka dhalinyarada dulminaya waraaqadaa loo dhiibay. waxaa la yidhi waraaqadahani qaad, jarjar daaqadda gurigaaga, fur, ka daadi, berina maxkamaddan iskan keena, beriyan kiiskani sii wadaynaa. odaygii wuxuu qaatay fariintii uu qaadiga uu u dhiibay, wuu baxay, gurigiisuu tegay, waraaqadihii uu jarjaray, daaqadii uu ka daadiyey. maalinta xigta maxkamadduu yimid, wiilkiina wuu yimid, dadkii dacwadda dhegaysanayeen way yimaadeen. qaadigii wuxuu yidhi dacwaddu dhegaysigeeda way inoo furan tahay. odaygii wuxuu weydiiyey, wuxuu yidhi aabay waraaqadahan kuu dhiibay ee jarjar aan ku yidhi. wuxuu yidhi adigaa ii yidhi jarjar oo daaqadda ka daaday, marka wuxuu yidhi oratay ii soo qaad, dib u soo uruuray. wuxuu yidhi ma waalan tahay adi qaadi, waraaqadaha dabayshaa qaadayoo waxba ma soo celin karo, iskuma keeni karo. qaadigii haddaba wuxuu yidhi haddaba ogow, hadallada aad dhehaysay waa sidaas oo kale. hadalka aad tiri wuxuu u fiday oo meel walba u gaaray sida waraaqadahaas oo kale, mana la soo celin karo. ninka dhalinyarada waa dulmisay, magdhowuuna kugu leeyahay, joojina dacaayadda iyo ceebta aad ka fidinaysid aadanaha kale. haddaba xigmadda sheekadu maxay tahay? nimcooyinka uu ilaahna siiyey waxaa ka mid ah carabka. waxaad arkaysaa inta howl uu qabanayo faa'iidooyin badan uu leeyahay. faa'iidooyinkiis waxaa ka mid ah dareenka dhadhanka carabkuu ku jiraa. xiriirka wuxuu ku jiraa hadalka. oo hadda fideogan aan duubayo ee youtube-kana aan dhigayo, haddii carabkana uusan jiri lahayn ima suuragelin lahayn. balse carabka wuxuu u baahanyaa mas-uuliyad, waa inaad ilaalisaa. diiniyanna in badan waa laga hadlay carabka iyo dhibkuu leeyahay. mas-uuliyadda inaga saaran maxay tahay? waa inaan xulanaa hadallada aan dhehayno. yaysan dhicin in aan dhahno hadal hadhow inta nolosheena ka harsanta aan ka shalaayeeno. yaysan dhicin hadallo aan ku dhibaateynayno dadka walaalaha ah inaynu ku hadalno. hadalka wuxuu ammaan u yahay inta aadan dhihin. mar haddii aad dhahdo, waa sida waraaqadahaas dabaysha la raaciyo kale, ma soo celin kartid. hadal xunoo kaa tegay oo qof walaalkaaga aad ku dulmisay ama aad ku dhaawacday sharafkiisa, ma soo celin kartid. raaligelinta doonta ka bixi, ma soo celin kartid. marka sidaas daraaddeeda fadlan aan ilaalino mas-uuliyadda ina saaran ee ah xulashada hadallada aynu ka hadlayno. sidoo kale ceebaha qofka kale yaan la fidinin. iskaba daatan ugu liidato ah in la abuuro. waad mahadsantihiin.